kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka Ol Banaadir waxaad ku soo dhawaataan oo halkan idinku soo gudbinaynaa warbixin aan si gaar ah kaga hadlayno waa maxay federaal dadyo kala duwan oo caalamka ku nool ayaa siyaabo kala duwan waxay u aaminsan yihiin magaca federaal halka Soomaalida qaarkoodna ay ka aaminsan yihiin in ereyga federaal uu yahay erey macno badan ereyga federaal ayaa waxa uu yahay mid ka mid ah waxyaabaha ay ku dhaqmaan dawladaha caalamka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaana qaadatay ereyga federaal iyo nidaamkaas sanadka markuu ahaa 2004 dawladdii xilligaas la soo unkay ee la soo aasaasay ayaana qaadatay nidaamka federaalka waxaana wixii xilligaasi ka dambeeyay Soomaaliya dawladihii laga dhisay ay ku shaqeynayeen habka iyo nidaamka federaalka kaas oo sahlay waxyaabo badan oo dawladihii ka horreeyay aan u suurtagelin nidaamka federaalka ayaa waxa uu qeexayaa in dawladda jirta ee dawladda dhexe ah in ay hoos yimaadaan maamul goboleedyada ka jira dalka waxaase intaasi u dheer in ay leeyihiin awood madax bannaan oo ay ku maamuli karaan arrimahooda ku saabsan gudaha maamulkaas waa gobollo isku tegey misna samaystay magac iyo maamul u gaar ah waxayna taasi ka dhigan tahay in loogu yeerayo wixii wakhtigaasi ka dambeeya dawlad goboleed waana dawlad maamul ahaan iyo siyaasad ahaan ka madax bannaan dawladda dhexe ee dalka ka jirta balse dhaqaale ahaan iyo shacab ahaanba waxa ay ku midaysan yihiin magaca Soomaaliya ama Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waana maamullo qaar oo dalka ka jira xilligan sharciga uu leeyahay nidaamka federaalka ayaa waxa uu qeexayaa in federaalku uu yahay mid ay ku midaysan yihiin dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe waxaana gobollada isku tegey markaasi ay samaystaan maamul tirada gobollada loo ogol yahay in ay maamul samaystaan ayaa waxa ugu yar in ay yihiin laba gobol iyo wixii ka badan ayaana loo ogol yahay in ay samaystaan maamul u madax bannaan maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa xilligan waxay u badan yihiin in ay ka kooban yihiin ilaa iyo 3 gobol qaarkoodna waa kuwo ka sii badan 3 gobol dadka qaar ayaa waxa ay dhaliilaan maamullada qaar oo iyagu ka kooban 2 gobol maamulkaas ayaana waxa ay ku sheegaan in markii la dhisayay la baalmaray dastuurka u yaala dalka waxyaabaha federaalku uu midaynaya ayaa waxaa ka mid ah dastuurka u yaala dalka oo lagu qeexay in maamul goboleedyadu ay qayb ka noqonayaan dawladda dhexe ee dalka ka jirta sharci ahaan iyo nidaam ahaan federaalkuna dawladda iyo dawlad goboleedyadu waxay u siman yihiin ansixinta waxyaabaha qaar sida dastuurka oo la dhammaystirayo waana midda ugu weyn ee muhiimku ah marka la eego ama la soo hadal qaado federaalka federaal dawladda dhexe muxuu ku soo kordhiyey muxuuse kala dhacay marka la eego jamhuuriyadda Soomaaliya ka hor inta aan la qaadan federaalka dawladihii dalka ka jiray ayaa waxa ay ku dhaqmi jireen nidaam aanan ahayn federaalka aqoon-yahano badan ayaa ereyga federaal waxa ay ku qeexeen in uu yahay mid kala googoynaya bulshada Soomaaliyeed maadaama dawlad goboleedyadu ay samaysanayaan xuduudo u kala gooni ah oo mid walba uu leeyahay xuduud isaga u gaara xilligaas waxa ay ku sheegeen misna ay ku macneeyeen ereyga federaal in uu yahay mid lagu kala jarjaraya deegaanada Soomaalidu ay degto waxaana maamul walba la siiyaa in uu yahay madaxweyne mid ka mid ah qofka ay soo doortaan xilligaas dawladda dalka ka hana qaaday ayaa xilligan waxay la daalaadhacaysaa maamullada qaar ee dalka ka jira nidaam ahaan in ay diidan yihiin nidaamka dalka ka jira waxaana dawladaha qaar oo xubnaha ka ah dawladda dhexe ee Soomaaliya ay hore u sheegeen in aysan hoos tegin dawladda dhexe ee dalka ka jirta federaalka markii la sameynayay maamul goboleedyada ayaa waxaa lagu qeexay in madaxweyne kasta oo maamul goboleed oo u dhigmo maamulka gobolka xilligaas ka arrimiya balse Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan u qaadatay nidaamka federaalka madaxweynayaasha ka jira dawlad goboleedyada dalka ama maamula ayaa qaarkood waxay yihiin kuwa la mid ah awoodda uu leeyahay madaxweynaha dalka ka arrimiya kaas oo dhammaan maamula wax kasta oo hoos taga dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaa jira dawlado badan oo qarniyaal ka hor ku soo dhaqmaya nidaamka federaalka balse sida Soomaaliya ay u aragto uma aysan arkin oo waxa ay leeyihiin gobollada qaar maamullo kuwaas oo hoos taga dawladooda xilligaas dalka ka jirta waxyaabaha ugu badan ee dawladda dhexe ee dalka ka jirta saamaynta ku yeesha ayaa waxaa ka mid ah sharciyada qaar ee markii la ansixinayo ay ka hor yimaadaan maamul goboleedyada dalka ka jira xulista baarlamaanada oo 2 gole ka kooban ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa laga soo kala qaataa xilliga la soo xulayo deegaan doorashadooda oo ah maamullada qaar ay ka soo kala jeedaan waxay maamulladu xilligaas helaan madax iyaga matasha oo dawladda dhexe qayb ka ah waxaana caddaynku ugu filan in ay xubnaha qaar ay qayb ka yihiin dawladda kuwaas oo ku jira 2 gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya qaarkood waa wasiirro kuwana waa xildhibaano balse nidaamka ay dawladdu wax ku maamusho ayaa qaarkood ay diidan yihiin
mucaaradka ugu badan ee dowladda xilligan dhaliisha u jeediyo ayaa waxaa loo arkaa in ay yihiin maamul goboleedyada dalka ka jira madaxdooda. deegaano badan oo dalka ah ay ka dhisan yihiin maamul goboleedyo ayaa horay dowladda dhexe waxay u sheegtay doorashooyin ka dhacay in ay yihiin kuwa baalmarsan sharciga, halka iyaguna ay awooddooda iyo xooggooda ku meelmariyeen. dhaliilahaas oo dhan waa mid loo jeedinaya dowladda iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah. waxa la isku eedaynaya ee ugu weyn ee meesha yaalla ayaana waxa ay yihiin nidaamka federaalka. hore ayaa siyaasiyiin badan waxay u sheegeen in Soomaaliya aysan ku habboonayn xilligan in ay qaadato nidaamka federaalka. dowladda jiray 30 sano iyo wax ka badan ayaana nidaamka federaalka hore u qaatay, halka Soomaaliya markii ay qaadanaysay nidaamka federaalkana ay ka soo baxday dagaallo sokeeyo oo 20 iyo dhowr sano ka socday gudaha dalka. taas ayaana waxay keentay in Soomaaliya ay ku jahwareerto qaadashada nidaamka federaalka. dowladaha Soomaaliya dariska la ah qaarkood ayaa waxa ay leeyihiin nidaam federaal ah kaas oo ay isku maamulaan shacabkooduna ay yahay kuwa hoostaga dowladooda xilligaas dalka maamusha. marka la eego nidaamka federaalka ayaa Soomaaliya waxa uu keenay dib u dhac ballaaran, taas oo aqoon-yahano badan ay sheegeen in nidaamka federaalka ay Soomaaliya ku adkaatay qaadashadeeda. Soomaaliya ayaa waxaa lagula taliyey in nidaamka federaalka ay ahayd in ay qaadato waqti ay hesho dowlad madax bannaan oo dalka ka arrimisa, balse dowlad xooggan oo aan jirin ayay nidaamka federaalka qaadatay dowladda dhexe. taas ayaana waxay keentay in Soomaaliya ay ka bilaabatay dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu horreeyaan in madaxda maamul goboleedyada ay mucaaradka koowaad ee dowladdu noqdaan. waana midda ilaa iyo maanta taagan oo khilaafka baasan ka dhex dhalisay dowladda iyo dowlad goboleedyada. maxaa lagaga baahan yahay dowlad goboleedyada dalka ka jira? dowlad goboleedyada dalka ka jira ayaa waxaa lagaga baahan yahay in ay qayb ka noqdaan dowladda dhexe ee Soomaaliya, si toosana ay u hoostagaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya. go'aanada ay qaadanayaanna waa mid ay soo dejisay wasaaraddu. sidaas oo ay tahay ayaa waxaa jirta arrimo fara badan oo meesha ka baxsan kuwaas oo loo baahnaa inay qayb ka noqdaan. waxyaabaha ugu badan ee dhaliyey muranka ayaa waxaa qayb ka ah ansixinta miisaaniyad. waxyaabaha ugu badan ee muranka dhaliyey ayaa waxaa ka mid ahaa ansixinta xeerarka qaar kuwaas oo ay si cad u diideen maamul goboleedyada dalka ka jira. kuwa qaar ee maamuladaas ayaana waxay sheegeen in aan lagala tashan sharciyadaas, waxayna dowladda ku eedeeyeen in arrimahaas ay tahay mid iyadu ay u madax bannaan tahay go'aanna ay ka gaartay. inkastoo dhammaan waxyaabahaas uu jira, haddana dowladda dhexe weli kuma inkastoo arrimahaas oo dhammaantood xilligan taagan, dowladda dhexe ma waddo dadaallo ay wax kaga qabanayso khilaafka kala dhexeeya dowlad goboleedyada. khilaafkan ayaana waxa uu aad u xumaynayaa xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe. goorma ayaa khilaafkan uu soo gebagaboobayaa? muxuuse saameyn ah ku yeelanayaa doorashada dalka? khilaafka ugu badan ee dowladda iyo dowlad goboleedyada ayaa waxa uu soo ifbaxayaa marka la gaaro 2021-ka. waa xilliga doorashada loo asteeyey in ay dalka ka dhacdo. xilligaas ayaa waxaa la dareemayaa xiisadda u dhexaysa dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe. qof walba ayaa waxa uu doonayaa in doorashadaas uu ku lug yeesho, awoodna uu ku yeesho guddiga doorashada ee xilligaas shaqaynaya. waana sababta ugu weyn ee xilligan digniinaha loo jeedinayo ay tahay inay wax ka qabato dowladda. dadka qaar ayaa rumaysan ama aaminsan in aysan dhicin wax doorasho ah iyada oo aan la qancin xubnaha ka tirsan dowlad goboleedyada ee tabashada xilligan ka tabanaya dowladda. waa cabasho ballaaran oo hore uga soo yeertay madaxda dowlad goboleedyada, welina aysan meel marin dowladda dhexe ee Soomaaliya. taas oo jirto haddii uu sii xumaaday xiriirkan, waa mid ka mid ah waxyaabaha dib u dhac ku ridi kara doorashada dalka la filayo inay ka dhacdo 2021. Soomaaliya ayaa waxaa ku habboonaa federaal in ay qaadato xilligii ay jirtay dowladdii dhexe ee militariga, taasoo awood u lahayd in ay maarayso guud ahaan dalka oo dhan. waxaa jira dowlado badan oo hore u qaatay nidaamka federaalka, kuwaas oo nidaamkoodu noqday mid guulaysta, kala dambayn iyo nidaamna oo waddankooda oo dhan uu leeyahay. balse qaadashada nidaamka federaalka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ah mid abuuray khilaaf iyo isqaqabsi baahsan, kaas oo ka yimid maamul goboleedyada dalka ka jira. micnaha federaalka iyo qiimayntiisa ayaana la sheegaa inaysan fahmin madaxda maamul goboleedyada dalka ka jirta. waana midda lagu dhaliilo laguna sheegay in ay tahay in ay dhibaato abuureen. qaadashada federaalka iyo nidaamka ayaa loogu talagalay inay qaataan dad aqoon u leh waayo aragna ku ah qaadashada nidaamkaas, maadaama uu yahay maamul kala hagaya kalana xadaynaya dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka xilligaas ka jira. daawadayaal, waxaa intaasi ku dhan warbixintii aan sida gaarka ugu eegayna waa maxay federaal, muxuu yahay micnaha federaal, yaa loogu talagalay federaal in ay qaataan, awood noocee ah ayuu federaalku siinayaa dowlad goboleedyada dalka ka jira.
muxuu soomaaliya ku soo kordhiyey federaalka maxaadse ka aaminsan tahay federaal inuu yahay mid faa'iido u leh bulshada mase mid dib u dhac u leh waad ku mahadsantihiin la socodka iyo daawashada warbixintan iyo guud ahaanba warbixinnada ka baxo janalka olbanaadir